falimaha rasuullada cutubka 18 waxyaalahaas dabadeed ateena ayuu ka tegey oo wuxuu yimid korintos meeshaasna wuxuu ka helay yuhuudi akula la odhan jiray oo reer bontosa oo mar dhow haweenaydiisa biriskila kala yimid itaaliya maxaa yeelay kalawdiyos baa ku amray yuhuudda oo dhan inay rooma ka tagaan wuuna u yimid iyagii isaguna la shuqul buu ahaa sidaas darteed ayuu la joogay iyagii wayna shaqeeyeen waayo xagga shuqulkooda waxay ahaayeen taambuug sameeyayaal oo wuxuu sabti walba sinagoga kula doodi jiray oo soo jeedin jiray yuhuud iyo griigba laakiin markii silas iyo timoteyos makedoniya ka yimaadeen hadalka ayaa haystay bawlos isagoo yuhuudda hortooda ka sheegaya in ciise yahay masiixa oo markay ishortaageen oo caytameen isagu dharkiisu hurgufay oo ku yidhi iyagii dhiiggiinnu madaxiinna hadduu lahaado anigu nadiif baan ahay hadda kadib waxaan u tegi doonaa dadkaan yuhuudda ahayn markaasuu meeshaas ka tegey oo wuxuu galay gurigii ninka titos yustus la odhan jiray kaasoo ilaah caabudi jiray oo gurigiisu ku xigay sinagoga markaasaa krisbos oo sinagoga u sarreeyey baa rabbiga rumaystay isaga iyo kuwii gurigiisa oo dhanba kuwo badan oo reer korintos ahna ayaa markay maqleen rumaystay oo waa la baabtiisay haddaba rabbiga ayaa wuxuu bawlos habeennimo riyo ku yidhi ha cabsanin laakiin hadal hana aamusin maxaa yeelay anaa kula jooga ninna kuma dhici doono inuu wax ku yeelo waayo dad badan baan magaaladan ku leeyahay meeshaasna sannad iyo 6 bilood ayuu joogay oo wuxuu dhexdooda barayay ereyga ilaah laakiin kolkii galiyos ahaa taliyaha khaya yuhuudi oo isku qalbiga baa ku kacday bawlos oo waxay hor keeneen kursigii xukuumadda iyagoo leh ninkanu wuxuu dadka yeelsiiyaa inay ilaah u caabudaan si sharciga ka geesa laakiin kolkii bawlos u dhowaa inuu afkiisa kala qaado ayaa galiyo yuhuuddii ku yidhi kuwiinnan yuhuudda aw xaajadii hadday tahay xaqdarro ama xumaan sharac sababtaas waan idinku dulqaadan lahaa laakiin hadday yihiin su'aalo ku saabsan hadallo iyo magacyo iyo sharcigeenna idinka qudhiinnu fiiriya maxaa yeelay anigu dooni maayo inaan waxyaalahaas xaakin u ahaado markaasuu iyagii ka eriyey kursigii xukuumadda kolkaasay kulligood waxay qabteen sostenes oo sinagoga u sarreeyey wayna ku garaaceen isagii kursigii xukuumadda hortiisa galiyona dan kama gelin waxyaalahaas markaasaa bawlos maalmo badan sii joogay dabadeed ayuu walaalihii ka tegey oo wuxuu u dhoofay suuriya isagoo ay la socdaan biriskila iyo akula wuxuuna kanereeya hore ugu xiirtay madaxa maxaa yeelay nidar buu galay markaasay waxay yimaadeen efesos oo halkaasuu iyagii kaga tegey laakiin isagu wuxuu galay sinagoga oo la dooday yuhuuddii oo markay weydiisteen inuu wakhti ka sii dheer joogo ma uu oggolaan laakiin markuu ka tegey ayuu ku yidhi mar kalaan idiin soo noqon doonaa haddii ilaah doonayo markaasuu efesos ka dhoofay oo markuu kaysariya ku soo degay ayuu wuxuu u aaday oo salaamay kiniisadda markaasuu antiyokh aaday markuu intii muddoa meeshaas joogayna wuu ka tegey markaasuu meel u sii dhex maray dalalka galatiya iyo farugiya isagoo xertii adkaynaya haddaba waxaa efesos yimid yuhuudi abolos la odhan jiray oo reer iskandariya ahaa oo wuxuu aa nin hadalyaqaana oo qorniinka garasho xoog leh u leh ninkaas jidka rabbiga hore baa loo baray oo isagoo ruuxa ku kulul ayuu ku hadlay oo hagaagu baray waxyaalihii ciise ku saabsanaa isagoo garanaya baabtiiskii yooxanaa oo keliya oo wuxuu
bilaabay inuu geesinimo kaga dhex hadlo sunagoga laakiin biriskila iyo akula markay maqleen isagii ayay kaxaysteen kolkaasay aad ugu sii caddeeyeen jidka ilaa oo kolkuu damcay inuu u sii dhaafo akhaaya ayaa walaalihii dhiiro geliyeen oo waxay xerta u qoreen inay soo dhoweeyaan isagii markuu yimidna aad buu u caawiyey iyagii kuwaasoo nimco ku rumaystay maxaa yeelay si xoogla ayuu yuhuuddii u garansiiyey oo caddaan ugu tusay qorniinka in ciise yahay masiixa